magacaygu waa Cabdiweli Xasan Taqal Faarax badana Kenya muranka ay gelisay Kenya amika hore ayadoo dal naga haysato haddana intii noo madax banaaneed ee Jamhuuriyadda Soomaaliyeed ay ku soo xadgudubtay sidaa awgeed marka badana Kenya waxay muranka u gelisay waa sharci darro iyo gal darro dhalinyarada Soomaaliyeed iyo daayarta Soomaaliyeedna waa in loo midoobay ama Djibouti joog ama Jigjiga iyo kala shanaad joog ama Garissa iyo Waqooyi Bari joog ama Soomaaliya Hargeysa iyo Muqdisho joog tani waa muqaddis guud waana muqaddis daandaansi cad oo aragto oo u jeedo oo lagu tijaabinayo labadii gobol ee Jamhuuriyadda Soomaaliya la isku oran jiray sidaas awgeed dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa la rabaa inay kacaan oo dalkooda difaacaan dhalinyaro kastana caalamka meel kasto ay joogto ayada dalkeeda difaacato aqoonyahanka Soomaaliyeed odayaasha iyo qoyaasha Soomaaliyeed gabdhaha dumarka daayarta Soomaaliyeed ayaa la rabaa dalkooda inay difaacaan haddaan difaacanin cidna kuma difaacayso dhulkooda waxaa la kuma qodna cawsna kuma weeyaan marka sidaa awgeed waxaa la rabaa inaan isku duubnaano tanana waa muqaddis guud waa inaan difaacano si sharaf leh oo difaacano lacalla haday Kenya loo saxiixaba waa inaan awood iyo dagaal iyo qori afkaan ku soo celinaa intuu shakhsi Soomaaliyeed gabadh Soomaaliyeed waxay la joogto intay naga nool ma qaadan karto waa mid awgeed waa inaan ayada gobolka ay haysatay Waqooyi Bari waa inaan ku dagaalanaa ayadana baday ka hadlaysaa waana hadda maxkamadda adduunka horteeda waan ka sheegnay inaan leenahay oo ku dagaalanaa oo ka hadalnaa Waqooyi Bari Soomaaliya way عتو كيهاي وقوي بري كينيا أو أكترنا إنجليز بان كبحيي وأنا أو أكترنا وقوي بري سوماليا وين يلا إنك مركز هذا أوجد وحال ربعنا لكن هذا إنك عن كشقينا قبيل يا فار قبيل بريتنا اللقاء كنا بريتها أيضا عاصمة دنا لو وقفنا يا سوماليا مقدسة بري هم هذا محمد دفاع عن كريم يا هل هذا واحد دفاع عن كريم أو تبر لين لكن كجيجو جو يا كجارسة جو يا كجيبوتي جو يا كارجيسة جو يا كمقدسة جو هذا سكوتهم نان عندنا قوس أمريكا تونيك كافر أيه واللوجي هاي تقال كسبن أثيوبيا واحد سومالي واحد لوكل برجورين هاي تقال كسبن أثيوبيا هاي كوكان مركا هذا هذيك سكوتهم نان هذا سكوت شنين عندنا كدفاع عن مش هاي إنك تبدل كيسات هلا كمان الدفاع هذا قرية قادرين حدود هذا يبطل هذه بري هذا دفاع يكون دفاعي وعنا وكواينا دفاعنا وأنا أسكتهم لنا وأنا أسكت شلنا إنك وأنا نعدنا كت شلنا. مقالة ما يبلره يدين بريء لره مقالة مقدسة كنول وأرد كده شغال جواها ما يبان شغالنا كينيا ما دام هذا كنغتي بدأ سوماليا إني مركلهم فرق لنا أنتي كجرتي أو ناي أرد دبعتي ودين أنت كرهبته سبب تو ما يبوها ولا ينلها نيا كدولاسية بدأ سومالنا عبر جوالوي أنتي سدحكون سدح بقول صدقني 6 كيلومتر واي langna sang mu kudi mu kor sus na mu ku bega kor laki sang le kudi ma sus le ku bega na sung lag gasya wara sung yone sarran ndam da may ban shagane Kenya ini on hay arde inti waday dabate wadi arag day hob ya ku tawba shante meel na hadawayan hob yan ku tawba shangne maana arde na number boqed oo kala hoosta ku next tafaasana may barana boqda tartiba din kasal deedo insha Allah heer wajar iyo heer gaarasana may barana dadkii ma hasin ku jarana ka irigun hasin ku jarana lena lingaas wala masin ku jar dadkii ma hasin ku jarana irigun ga jeesin ku jarana ta fiiriyana yoona may ban sheegana siyaasiyiinta Soomaaliyeed dhamaantii intii boonay hatarda isa haysto ee buuqii hoose kiijo yooska haysadaan way kan dib oonahay mana dibadin qow in liingmado yalin baahanya sababtoo ay may boohan aragday rawle u dhiinga daraad odye eedahay madiyoonay Soomaaliya Kenya uga meelisatay oo iska buuqi Somaliland rasmi aan ogoonsadana midowga Yurub Afrika urugabaadka gad yeeyana dantiya dhon yaba may barana arday uu horbuudkana siiyay ardayda ee madax banaanida qaadata saas dartiya markan reer dhiga may ku shaani in wadan jeey difacda ku shaani sababtoo uu may markan uu may difaacana markan muaradka ayana may baan ku baahanna in yoonay araan wali hoose iska haysado hadir faan guriga nisdiidane laakiin wali dibadda in liing midoow wali baahanyo halay xisbiga muaradka ay wadani aragdeeda hadalka ku baahi may ba sheegan in yoonay liing midoow doona qaranka boos hore ku fadhideen hata maana dadkii biyo aragdeeda ku horeeyay oo hortiyo roogay Puntland iyo Jubaland ku hormareen maalintan tan sababtoo ay may boohan arday Soomaalinimada rasmi ah daayan tan guud anu iska haysana ma yarana unu iska haysana tan dibadina sagdoog in maana guud ka wajahno way saas dartii hadda waayaan maamulka Soomaaliland ma bilana boos hore qaranka ku fadhiyaan ma hasintiin sidan wada oo nagano habdada horma ku dareeraan arday saamaqaad iyo luud iyo dhadhiyo balaawe saamaqaad fayla suubidan
hadhow ayaan iyo nardeeda hadal joon eed yeedan ka faracani xalay iyo maantaba ka faracsan soo marka ugu horeys magacaygu waxa waaye maxamed cabdikariin xasan oo ku nool magaalada muqdisho waa mid aad loogu farxo inay dawladda Kenya ay ka laabato maadaama marka horeba ay badda iska leheen ay wax kale ahayd haddana badda waa guul noo soo hooyatay shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed waa guul weyn oo noo soo hooyatay dawladda Kenya waxaan dhihi lahaa saaxib Soomaaliya wax aad ka bedeli kartid malaha baddaas hadda ICD caalamka ay wax ka qaban waayaan in ay Kenya ay ka baxdo sida ugu dhaqsiyaha badan haddii aanan shacabka Soomaaliya dalka Soomaaliya annaga iyo ciidankan iyo shacabkeena isku duuban Kenya sida ugu dhaqsiyaha badan aan ku abaarayna waan iska dhicinayna baddaasi sheegaysaa waan haystaa idhoosay dhulkeedaan ku qabsanayna ilaaha nagu dhaartay Kenya waxaan u sheegaynaa inay wax Soomaaliya wax ay ka bedeli karin abti Kenya sida ugu dhaqsiyaha badan annaga meel iska saaraynaadi insha Allah guushan soo heytay marka shacabka Soomaaliyeed guud ahaan iyo madaxda maxay uga dhigan tahay waa guul aad u weyn oo maxaa yeelay waa intaasoo sano ay soo dibadjiitamaysay waa guul lagu farxi karo oo lagu farxi karo maadaama ay baddi ay ka tanaasushay ay dhahay dacwadda ka soo qayb galay baddana waa kaasa aad baan ugu faraxsanahay waa guul aan la soo koobi karno aad baan u faraxsanahay shacabka waa wada faraxsan yihiin dawladdana way ku faraxsan tahay laakiin dawladda waxaan u soo jeedin lahaa qalaasaha iyo buuq ka dhex jira dawladda dhexdeeda waa inay xal laga gaaro dhibkaas iyo waxaas waa shacabka Soomaaliyeed loo turo dalka Soomaaliyeed loo turo dalka Soomaaliyeed dhibaato iyo burbur iyo qaxar iyo xabad iyo waxaas dhan uu soo gudbo uu soo maray waa in dagaalkii wixii loo celinayna horumar kale aan siiyaan insha Allah wallahi waa arrin aad u fiican inay ka laabato waana baddan Soomaaliya iska leh cid kale oo macnaha ku haysatana ma jirto waxay ugu sheegtaan waa gardarro waana iska cadda dacwadii badda hortaalay maxkamadda ICJ Soomaaliya isbuuc hore ay waqtigeeda dirtay Kenya iyadoo wili waqtigeeda aan dirin maanta waxay shaaciyeen warbaahinteeda marka dawladda Kenya gabi ahaan bay ka laabatay guushan soo heysay maxay ku dhigan tahay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed waa maalin macnaha aad iyo aad macnaha Soomaalidu guul weyn ugu fadhiso waana arrin loo baahnaa muddo dheer la sugay maxaa ugu baaqay marka shacabka Soomaaliyeed iyo madaxdeeda waxaan ugu baaqayaa macnaha inay ka shaqeeyaan midnimada iyo dawladnimada iyo macnaha jiritaanka ummadda Soomaaliyeed inay ka shaqeeyaan iyo dalku sidoo hore ugu marin lahaa hore ugu horumari lahaa intaasaan ugu baaqayaa magacaygu waxaa la yiraahdaa Maxamed Cabdirashiid Aadan markaan ka hadlo fikirkayga ka dhiibto badda oo maaragtay Kenya ka laabatay waxaan u arkaa markii hore waxa ku qabsku qadimaysid hadday ka laabteen kulli waxa waa wax cad meesha ka arkeen maadaama ayna lahayn oo ku qasbiyin inay gadaal u noqdaan marka guushan maxay kaga dhigan tahay shacabka Soomaaliyeed guud ahaan ma sha Allah waa guul oo noo soo hooyatay iyo gobonimo aan gaarnay run ahaantii wax ka maqnaa markaad hesho waxa waxay leedahay farxad aad u tiro badan sida u jeedo waxa waay aad baan u faraxsanahay waxaan ku faraxsanahay in maaragtay asalna anaga lahaynay oo waa waxaan lahayno anaga lahaanshaheeda lahaynay haddana waxa waxay maaragtay u cadeeyeen ummadda maaragtay dadweynaha oo dhan marka anagana waxa la waa guul aad iyo aad aan filaynay oo ku taameynay aan gaarnay insha Allah marka maxaa u baaqaysaa guud ahaan shacabka Soomaaliyeed siyaasiyiintooda iyo madaxdooda kuwa xilka haya iyo kuwa mucaaradka inta maxaa ugu baaqaysaa ma sha Allah waxaan leeyahay aan u midowno aan u dabaaldegno ha loo xafladeeyo waa guul la gaaray guushan iskama imaanin dadaal baa lagu baxshay dadkii dadaal ku baxshanay ayagana waa amaanayna oo gaarka ahay intii ducada haysana sidoo kale waxaan leenahay ducadeena waa aqbalay noqotay insha Allah ta'ala waxa waa guul baan gaarin saasaan leeyahay waxaan ugu baaqayaa hal xafladeeyo